Nin baa laba naag qabay, mid foolxun balse gaariyad ah, oo howlaha guriga aad u taqaan, mida kalena way qurux badan tahay balse wax ay qaban taqaano, malaha nafteeda iyo quruxdeeda lee u sheeg, howl guri waxba kama taqaano. Ninka wuxuu rabay inuu hal gabar furo, markaasuu keenay fikrad uu ku imtixaanayo kuna ogaanayo mida uu furayo. Wuxuu labadii gabdhood u geeyey laba neef oo ido ah, wuxuuna mid walba gooni ugu sheegay in ay marti qiimo badan u soo socoto caawa oo neefka casho laga rabo wuuna ka tegay. Habeenkii markuu soo laabtay buu wuxuu u yimi naagti gaarida ahayd oo neefkii qashay, oo intay kala habaysay casho macan badan oo kala nooc ah ka samaysay. Naagtii qurxanayd markuu u yimidna wuxuu arkay wax ay kariso, iska dahye, ayadoo mar mididii fiirinaysa, marna wanki fiirinaysa. Wuxuu ku yidhi maxaa samaynaysaa aaway cashadii lagaa sugayey? Waxay ku tiri meel aan ka bilaabo ayaan aqoon waayey hawsha aad ii dirtay. Ninkii wuxuu la hadlay naagtii laga qurxanaa ee gaarida ahayd, wuxuuna ku yidhi waan ku furay. Wuxuuna naftiisi ku yidhi waxaan u furay waayo waa qof isku filan, laakiin waa miskiin waxay u baahan tahay qof gacanta qabta oo garab taagnaada meel cidlo ahna loogama tagi karo. Warka wuu iska cad yahay naagta qurxan buu doortaye, muu runta iska sheego. Weligaa waqti ha iskaga luminin saa nin u tusi lahayd inaa naagaha kale ka gaarisan tahay, haddii kale meel cidlaa baad ku daalaysaa. Quruxdaada ku dadaal waayo haddaa daasho iyo haddii kalaba waa iskugu mid. Waxba ha isdaalin nin abaal ma leh. Anigoo boqorad caraweelo ah, waxaan idin leeyahay quruxda eebaa baxshee gaarinimada aan ku dadaalno, ajar allaa naga siinayee nin dartiis yaan loo noolaan naftaada iyo aakhiradaada u noolow.